السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي جميل كستا joogtiin soo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buule waa inay salaam asxaabay maanta waxaan rabaa inaan inaga hadlo arin aad iyo aad iiga yaabisay shalay anoo horta taariikhda waxay dhacday maalintii ahayd 29ka bisha hadda aan ku jirno waxaan newska ka dhageysanayay aan ka akhrisanayay journal waysa u jeedin CNN-ta qaasatan gabar Soomaali ah oo indhaha beeshay maxay indhaha u beeshay indhaha waxay u beeshay because waxay marsatay waxaan qasqas ka lahay gabadh intee bay joogtaa gabadha waxay joogtaa wadanka Mareykanka qaasatan meesha Minnesota la dhaho ee Soomaalidu ku badan yihiin maxaa gabadhaas u keenay weeye waxa u keenay kareen ee ka soo iibsatay suuqa ayaa lahay oo kareenkaas waxa qareenka qasqaska ah oo waxyaalaha waxa ku jiro sunta ah oo makariga la dhaho makariga ayaa aad ugu buuxay marka dhaqaatiirta markay dhakhtarka u tagtay waxyaalo badan ay jirkeeda ka dareemaysay lafaha ayaa xanuunayay way wareereysay hurdlaan ayaa ku dhacday matag ayaa hayay waxyaalo aad u depression ay madaxa laga hayay indhaha xanuunayay marka dhakhtarkii markuu waxa laga qaaday dadkaas dad waxa horumar leh waxa laga qaaday waa la test gareeyay markii la test gareeyay waa la yaabay jirkeeda waxa laga helay dharkeeda baan suntan makariga laguma talagelin bini'aadanka in asxaabay oo jirkiisa ama gurigiisa iyo waxaas dhan laga helo waa kareenkii marsanaysa ayuu ka buuxay marka ilaa 100 ml hadii laga helo waa meesha ugu dangerous waa zaid khatar u tahay marka makarigan waxa loogu talagalay dadka oo science-ka barta caafimaadka ay ka saayaan waa chemistry-ga iyo laguma talagelin bini'aadan jidkiisa inay helaan marka makariga maxaa keena waxaan la isku cadeeyo dhan waa ku jirtaa suntaas markay gadanayaan aan waxa ogeey dadkeena Soomaalida hadda ayaan hore gaba maamay imaaday daaway wadatay oo bomaati ah bomaatadii markaan fiiriyay bahalkii ka buuxay waxay dhaday matag ayaa ay qabanayo waan wareeraya markaan marsada iska tuuran ka asxaabay maamada iska tuuran ku dhahay waxa ku matagisid oo markaan marsatid xanuun aad dareemaysid waa wax aad iyo aad u khatar ayaan ku dhahay waxay nii sheegayaan marka dadkeena Soomaaliyeed inay xaabay marka waxaan igu la talinayaa ka digtoonaada waxyaalaan isku cadeeyo aad iyo aad ayay u tahay khatar gabadhii gurigeeda la baaray waxa laga helay gurigeedii even qasaalada dharka caruurta waxay u maleynayeen in gabadhan xal dhahay markay ku sirbaarista imaadeen booliska in kas u sameysay laakiin gurigii dadka ayaa u sheegeen xal gabadhan wax hagaaji isqurxi ay isdheysay maahane ilmeeda xitaa dharkoodii meel kasta guriga dhan way yaabeen alay dadkii gaaladii marka waxaan idhahayaa kalar ilaahay ku dhaliyay inta salgoy isdhehaysid xanuunayaan isku keenin gabadhan walaashay ilaahay waxaan ku baryayaa way indha beeshal dhahay dhaqaatiirtii markii la weydiin hal dhahay wax rajo ay leedahay ma jirto ilaahay ayaan waxaan ku baryayaa inuu ilaahay indhaheeda u soo celiyo kuwa kale Soomaalida iigan is cadeynayaan waxaan kula talinayaa tiktoonada iska daay waxaan aan sameynaysiin meel kasta iska daaya is cadeynta iska daaya ama qaarkiina la dagaaltamaysiin isku qanacsanaada dad muslimiin ayaa tihiin qof Afrikaan ayaa tahay wuxuu ilaahay ku sii is hagaaji laguma diidna dad dumar iyo nin tahay laakiin waxyaalaha oo fiican soo gata lacagta quura waxaan isku dishay idan qasqaska lacag badan la gadaa anu waan yaabay soo marka waxaan igu la talinayaa xanuunka makari mana akhrin waxba waan iska amarsanaa cilmi dhigood ayaan nahay wax akhrista research sameeya wax iska akhriska oo waxa markaa soo gadanaysin ama dukaanka joogtiin iska fiiriya meesha gadaale ingredient ka qoran hadii aqoonin qof u geey wax bartay iga fiir waxaan ku dheh waxaan ala soo ordaysiina wajiga marsanaysin waa very khatar ay tahay qofku siinay maanta indho mise wuxuu ilaahay ku siiyay ma jiro waxaan igu la talinayaa gabdhaha Soomaaliyeed kor u qaada wuxuu ilaahay ku siiyay maxal dhaha kalsoonidaada halkaas ayaan wasi guud baxaya wassalaamu calaykum waan dhahaa